xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa sheegtay in 24 milyan oo gini ay tan iyo 2013 ku bixinayeen Soomaaliya si ay ula sameeyaan unug hoos tagta ciidanka booliska oo qabta hawl gaar ah oo argagixiso la dirirka ah sida ay sheegeen. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay maalgelinayeen ciidan ay Soomaaliya ka sameeyeen oo la yiraahdo Goodir unit, kuwaas oo loogu talagalay inay ka hortagaan weerarada ay shabaabku ka fuliyaan bariga Afrika, gaar ahaanna Soomaalida haysata dhalashada Britishka ah ee laga keeno magaalooyinka London, Cardiff, Birmingham iyo Bristol. waxay sheegeen inay lacagta bixinayeen muddo 8 sanadood ah iyo inay booliiska Soomaaliya ay ku fashilmeen inay soo qabqabtaan ama ay soo sheegaan Soomaalida Ingiriiska ah ee arrimahan ku lugta leh, sida ku qoran dukumentiyo lagu faafiyay declassified. dowladda Ingiriiska ayaa ku khasbanaatay inay xogtan soo bandhigto kadib markii laga codsaday inay soo bandhigto macluumaadka ku saabsan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya sida uu qabo xeerka madax bannaanida xogaha Freedom of Information, kaasoo dhigaya inay dowladdu shacbiga war ka siiso wixii ay ka dalbadaan. arrintan waxa keenay dilkii xildhibaan David, kaasoo loo qabtay Cali Xarbi Cali oo uu dhalay siyaasi Soomaali ah isla markaana xagjirnimo weli laga baarayo, inkastoo weli aan lahayn wax la hubo. laakiinse Scotland Yard ayaa sheegaya in wiilkan Soomaaliyeed ee xildhibaanka dilay inay dhici karto in internetka lagu xagjireeyay. safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa sheegtay in sanadii 2019 oo kaliya ay dowladda Ingiriisku ciidamada Goodir siiyeen rasaas iyo gaashanada muhiimka ah ee balaastikada oo ku kacaya 81,000 oo gini. laakiinse ayay yiraahdeen ma jirto cid xataa maqasha meel ay ka shaqeeyaan ciidanka Goodir la yiraahdo ee aan maalgelino. ciidamada Goodir ayaa warbixinta lagu sheegay in lacag dhan 646,000 oo gini lagu bixiyay tababarkooda oo kaliya sanadii 2017, iyadoo ciidamadana ay ka kooban yihiin qayb degdeg u howlgasha iyo kuwa waxbaara sida ay shaacisay declassified, iyadoo aan wax natiijo ah laga hayn ciidamadaas.